السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالي واحد السلامي مركل يموقال كله هبينما وناكسن إذن ليه السود وهذا وحناوض هدو إله سبحانه وتعالى وقدره لبا قصة أو قصيدة أخرنتا معرفتي صلي النبي يا تكارته ولا أخستو لبصدي يقولي إن شاء الله هدو إلهي إدمو للرجالين أنا وضو هيجا وأن أدو بدنين لكن معنوي مفرد إن شاء الله أي نوض السود وهذا قصة كوبات هي نوضة waxay tahay gabar tiri waxa iga soo daahay ama waxaan igu dhacday waan guursaday laakiin waqti dheer ama muddo dheer ayaan waxaan waayay wax awlaad inaan dhalo waxaan markaa haystay oo kale tiri ninkuna wuxuu ahaa nin macnaha igu xun oo aan aad u maaragtay u wanaagsanayn anigoon awlaad haysan anigoo ninkii xaqiisa maaragtay aan ka haysanin farxad badan iyo waliba anigoo xagga jeeb xanuun ka dareemayay oo waxba aan haysanin waxyaabo badan isku kay darmay bay tiri anigoo marka aad u yara xaaladdu iiga qasan tahay ayaa waxa la sheegay inay ku jirto saacatul ijaaba maalinka jimcada ayaa la sheegay bay tiri dabadeedna waxaan maaragtay xilligaas ka dib bilaabay ama waxaan gaadi jiray bay tiri maalinka jimcaha gelinka dambe salaada casar meeshan ku dukado kama aana kici jirin ilaa maqribka ayaan ku sugi jiray bay tiri ilaahay baan meesha ku bari jiray marna nabiga ku salin jiray bay tiri ma sha Allah galab walba markii la sheegay kadib oo jimco ah meeshan casar ku dukado ma aanan dhaafi jirin bi saligaysan fadhi jiray adkaartan akhrin jiray saliga nabiga akhrin jiray quraankana waan akhrisan ilaahayna waan bari jiray bay tiri waxa kale oo ii dheeri ahay bay tiri habeenkii markaan seexanayo in aan ku sali jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam 100 jeer salaatul ibraahimi aan akhri jiray 100 jeer ma sha Allah inta marka aan seexan waaya markaan seexan rabo ayaan 100 akhrin jiray bay tir saliga nabiga ibraahimiyada ah 3 bilood markaan wado ayaa waxay tir arrimahayga is wada bedeleen ma sha Allah ubad nooma is sheegin laakiin waxay tiri waxaan ahaa qof lacag la'aan ay hayso ama waxay tiri buuqsan ama barabaransan ubad aan haysan ayaan ahaa balse ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ii saqray bay tiri 3 shaqo oo kala duwan oo midda kale ay ka mushaar maaragtay wanaagsan tahay dabadeedna waxaan qaatay mid ugu dhibka yar ugu mushaarka badneed ma sha Allah waxaan ku helay tiri on farxadda iyo jawiga ku galay aqrinta saliga nabiga iyo maaragtay maalinka jimcada oo xilliga dambe aan waxay tiri laasimi jiray galab walba aan ilaahay ku bari jiray saliga casr ku dukado ilaa maqrib laga gaaro salaad maqribna ay dul dhalan jirtay saliga dushiisa ma sha Allah hal lagu dadaalo marka oo hal laga faa'iideysto gabadha kale waxay tiri waxa igu dhacday bay tiri guur la'aan oo cilad haysatay awgeed ayaan guur la'aan u noqday in badanna waxaan waayay yaani qof aan guursan qof soo doonta dabadeedna waxaan sameeyay bay tiri nabiga ayaan ku saliyay ilaahay baan bariyay aad baan istighfaartay ilaahay baan ku ooyay bay tiri in badan baan Allah subhanahu wa ta'ala aribahayga u sheegtay dabadeedna subhanallah waxa soo doontay bay tiri rajul ama rijaal aad u wanaagsan oo kaala iska arag ma sha Allah markii horena waxay tiri waxyaabo ama maaragtay caqabado aniga haystay baa jiray oo guurka aan maaragtay guur dhan u waayay marka waxay tiri ayna musallin ayay tiri dadkii ku salinayay nabiga saligiisa sallallahu alayhi wasallam sidee maaragtay murug iyo stress iyo dhibaato ugu jirta qof ku salinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ma jiri kara waay macnaha oo hadii qofku intuu akhriyo oo ku guuleysto yaani wuxuu noo soo gudbinayaa wixii uu helay oo wanaagsana ma jiro qof nabiga saligiisa si yaqiina u akhristay ama badiyay ama laasimay irin ahaantii aan kala kulmin wax uu ku farxo iyo wax cajiib ah ma sha Allah marka waxay leedahay cuqubo walba ama dhib walba ku haysta ama wax walba aad dareemayso akhriso saliga nabiga oo laasimo oo adkaarta iyo dhikriga ilaahay badi oo adiga afkaaga yooso ku ciilin oo mar walba intaad qiila waqaala iyo ku tirkuteen wadi lahayd laazimo saliga nabiga ku dadaal humuumta laga qaadaya ee caafimaad baad ku helaysaa wax badan oo aad filaynin ama agtaada mustaxiil ka ahaa sida adiga aad niisneed hadii aad yaqiin billah la yimaad ilaahay waa ku dhabaynaya ma sha Allah qisooyinka qaaliga ayaa noo wada halaga faa'iideysto hana lagu dadaal aqris saliga nabiga
waxaad ogaataa haddii aad saliga nabiga akhrisato aad laasimato haddii aadan helin maaragtay wax maadiyan u muuqda oo adiga markaas xoolo iyo wixii aad rabto haddaadan helin xataa markaas waxaad helaysaa deganaan farxad bilaa buuq bilaa stress bilaa mushkilo bilaa walwal bilaa stress baad noqonaysaa feel free aad dareem adiga dhan maasha allah waa wax la tijaabshay oo la run ahaantii tajribadan kale oo maaragtay arsaaqada ama waxyaabaha waasacaana waa la arkay in badan ilaahay dad badan ku arsaaq marka ha lagu dadaalo marka maasha allah walaalahayga aan ka faa'iideysano intaas qisooyinka ayaa noogu eg qisooyinka ayaa intaas noogu eg maasha allah gabar abaayaha codii soo duubtay gabadhaas wixii ugu tiri waxaan ahay ilmooley waxaan isku arkay bay tiri ilowsho aad u fara badan quraan ayaan dhigtaa online baan ku dhigtaa haddana waxaan isku arkay ilowsho aad u badan in maskaxdayduba wax alla waxa aan maaragtay rabo inay galaan ayna gelaynin ayaan isku arkay bay tiri waxaa kale oo jirta ayay tiri oon tala aad maaragtay inaad iga sida aan rabaa waxaa iigu jira ilmaha ayay tiri wiil ilmahayga la dhashay oo habaray ah hooyo la-aan ah wiilkaas waxay tiri aad baan u xaq dhowraa waxaan jeclahay inaan aad u xaq dhowro marka waxay tiri waa dadlow oo maaragtay ay koris buu ahaa marka waxay tiri ilmaha hadduu kasoo sheegto waan ka celiyaa bal haddii ayagu kasoo sheegtaan waxaan idhaa walaalkiin waaye iska daaya saan sidaa u lahaa oon ilmihii u lahaa walaalkiina ka leexda ay ilmihii waxay barteen bay tiri inay iscuqdadaan oo yacni iyagu yacni dhexdooda cuqdad isgelgeliyaan oo maaragtay ilmihii ayna israbin wiilkaasna inta badan asagan xaq dhowrayaa maadaama aan hooyadii joogin maxaad igula talinaysaa marka aad haysato ilmo aadan dhalin cuqdadana aadan ka bi'i karin waxaana hooyo ilmooley ah maskax la-aanta ilowshaha waan isku arkay aad waan iskugu buuqsanahay aniga dhan xaalkaygu waa allow sahal maasha allah meel dheer looma doonayo oo waxaa kaa siinaa insha allah wixii aqliga iyo garaadkaygu ifaray hadduu ilaahay idmo marka laga soo tago ilmaha horta ilmuha noo dambeeyo midda ay ilowshaha ilowshuhu waxyaabo badanaa keeni karo qofku markuu asxaabi ciyaal yahay ilmahuna ay isku nuugnuug yihiin amaba maaragtay xaaladda ilmaha xilligaad ilmaha dhalayso aad walacayso ilmihii yaryarka qofkaas hawada dhan uu ka maqan yahay run ahaantii hawada dhan ayuu ka maqan yahay waa qof qolofkii jiskiisa loo jeedaa laakiin qof maaragtay waqsan anigu aaminsan ama aan soo arkay waaye dad badan oo iga fikrad duwan inay jiraan waa laga yaabaa taas waa kugu keeni kartaa ilmaha yaryarka isku nuugnuuga ah hooyar oo ilmaha yaryar haysato markaa tahay ilowsh iyo maskax la-aan ma weynaysid laakiin waxaa la rabaa wax walba say noqdaan ha noqdaani inaad hesho hurdo kugu filan haddii borobreen iyo buuq kale ku haysto inaad iska xallido isku day qofka bil-aadanka asagoon deganayn oo aan siina helin ama haddii caafimaad darro ay jirto aan dawo helin runtii waxna ma baran karo waxna ma qaban karo uur markaa leedahay sanad kalena umul aad tahay sanad kalena walaac aad tahay tii ilmaha iyo tarbiyadoodii iyo caafimaadkoodii iyo kalkoriskoodii waxooda ay kuusi dheer tahay madax xanuun iyo mashquul iyo problem ma weynaysid laga yaabay caqabadaha adduunka waxyaabo kamid oo kale inay ku saameynayaan kugu darsan yihiin taas waa ilmaha dhexdooda iyo korriinada iyo hooyanimada iyo waxaas ayay ka mid tahay run ahaantii anigu hadda waxaan ku leeyahay subxaan allah dhowr sano ayaan hawada kusoo laabtay oo aan ogahay yacni sida wax u socdaan iyo sida ay noloshu tahay dhowr sano kasii horreeyay sanadahaasna waxaan ahay qof inuu guriga jooga loo jeeda laakiin dee problem madax xanuun ilmihii walaac umul uur waxaasoo dhan maaragta ku jira laakiin dhowr sano alxamdulilah jawi degan nolol qabow ilmihiyo maasha allah kii u yaraadee inta loo dhaqo wixiisa lasii meesha la seexinayo iska seexanayo haddaa xanuun jirin wax dhibo aysan jirin ilmaha in la kala koriyo diiniyanay u wanaagsan tahayba wax kale iska badaayo in ilmaha la kala koriyo diintan ayaaba nafaraysa ilmuhu intay kala koraan adugu aad caafimaad hesho iyagu ay caafimaad helaan laakiin haddii cunugii uu noqdo kan dhalkii kala ku jira
adigana caafimaadku uma yaalo iyagana daryeel uma yaalo oo maaragtay qof walaaca ama qof maaragtay maalinba xaalad ku jirtaahi daryeel fiican ma siin karto marka walaashay waa kuu duceynaynaa ilaah subxaanahu wa tacaala maskaxda kuu dejiyo buuq iyo problem iyo waxa maaragtay maskaxda ka haya Allah ka qaado caafimaad taama ha ku sii ilaahay caafimaadka wax walba maamula ilaahay caafimaad ha ku sii ilmaha Allah kuu koriyo maskax la'aantana Allah ka qaado inaad nasato oo hurdo kugu filan hesho qof markuu nasto oo hurdo يعني wuxuu helayaa uu degayaa maskax degan ayuu helayaa haddii caafimaad darro iyo waxyaabo noocaas ay jiraan bal isbaar oo ishubi haddii caafimaad darro aysan jirin nasino kugu filan qaad isku day inta tabartaada ah waa hadda nasan oo caafimaad ilaahay inta ku siiyo caafimaad qabo aduu aadan nasanna ilmaha ma tarabiyin kartid mana korin kartid taas halkaas ugu tagaya insha Allah adkaaraha iyo ducooyinkana badso حلو والبا صلى النبي آخر الصبح وقلد آخر الصبح استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بتصو وحكو صهر المها لا دشة كل شوجة runtii ilmaha baraa marka ay tirwaan naxay oo ilmuhu ku habareeyahay iyadoo hooyadii iyo aabihii nool yihiin ayaa ilmaha marka adiga aadan dhalin aqoonta laga biyi karin bal markuu hooyadiisa qaaliga ahayd waayay booskii hooyo qof gasho u baahan yahay waxaan ku farayaa ilmaha yarka inaad soo dumato inaad isjeclaysiido inaad ilaahay daraadiisa aad maaragtay yani ugu samafasho oo si qurux badan aad ugu samafasho haddaba u samafalaa ayaa tiri oo maaragtay aad baan u xaq dhowraa haddana ayuu koris waayo codad ayaana ka bi'i karin camal warkuu egyahay 16 jir waa qof wax fahmaya laakiin xaaladda uu ku jira waxay qasbaysaa wax badan inay ka qasmaan waa teenager waa xilliyada ilmo ay ugu dhibka badan yihiin ugu daran yihiin oo ay xilliga qaangaarnimada maaragtay ku jiraan waaye wax walbana ay qaribayaan marka waxaad isku daydaa inaad soo dumato aad maaragtay wax xataa ilmaha aad siinin aad asaga siiso aad xagiis xooga u badato aad la sheekaysato aad tiraahdo hooyada oo kale ayaan ahay haddii hooyo la waayay booskeedana kuugu jira waxaa rabtay i weydii ilmaha waa walaalaha waa ka yaryar yihiin nin weyn walaalkooda ayaa tahay u naxariiso ilmaha kale ka celi la sheekayso yani ilmaha waa lala sheekaystaa dad badan waxaa jira ilmaha qaabka loola sheekaysto aan garanaynin laakiin waxaa la rabaa ilmaha in lala sheekaysto ayaa la rabaa oo qofka maaragtay anigu waxaan arkay run ahaantii hooyooyin aad u fara badan oo subxaan allah ilmahooda la dhashay ama ilmaha ayagu aysan dhalin aad ay u jecel yihiin oo ilmuhu labtirkoodu ay maamada aad u jecel yihiin inay jeclaato maxaa keenay ayadaa kasbatay wax ilmaheeda ayna siin bay mararka qaar siinaysaa way soo dhaweysanaysaa iyadoo isla maaragtay wax ka ilaali cudad ka ilaali inaada dhalin ha tusin maasha allah wiilashu gabdhaha lamid maahan oo dee wiil markuu wiil yahay ciidan buu ku noqonayaa banaanka maaragtay waxa ku dasto ku doonayaa haddii ilmaha qaar qalqaali iyo iska dhib badan jiray oo aad u dhib badanayn maadaama uu habar leeyahay waxaan ku dhihi lahaa oo hooyo la'aan yahay aad ugu roonaaw maalmaha kamid ah ayuu abaalkaas ku gudi doonaa maalmaha kamid ah subxaan allah hadda ka hore waxaa jirtay run ahaantii anigu qisooyinka weligayba waa dhageysan jiray xataa markan aan YouTube midna aanan lahayn waxaan jeclaa inaan qisooyinka dhageysto baadiyaha waxaa ka dhacday bal magaalada iska dhaaf maanta baadiyahan aadaynaa nin baa naag qabay naag kale ayuu guursaday marka naagtaa hore wax u wada ma aysan lahayn naagtii kale waxay maqasho uur yeelatay marka naagtii dambe la guursa ayaa uur yeelatay cudad baa gashay tii aan uurka lahayn oo ilmaha aan lahayn ilmaha haysan hore marka waxay tiri alla ilaahay naagtii hadda laga daba guursaday uur bay yeelatay cunugaas habeenka ay dhalayso waana dhibaato u geysataa baadiyahana dee ma magaalada ka jira kama jiro ama lacagna haysto istaalka doontaa iska aadayso naagta lagu qabay ama naagta dariskaaga ayaad qof ka dhiganaysaa habeenkii foosh ku qabato marka waxay ogeyd yani dhaqanka meesha ka jiray taqaano waxay tiri habeenka laygu yeero oo la dhaho way foolanaysaa ama way dhalaysaa sakiina bartaas ka gelinayay dhalada ah si uu cunugaas u hana kicin oo usan maaragto uu soo noqon ba cunug indha ku muuqato ama
ay ilma ka dhigato ilaa ilma haystay subxaanallah cuqdada noocaas ayay la noolayd sidii ula noolayd caawa dambe la yiri iblaya foolaneys sakiinteeda soo qaadatay aayarku wixii ayada ka sheekaysay waxay tii mar alamka cunugii saa u soo dhacay cunugii aan saa uga qabtay ee aan islahaa dhac ku sii ayaa raxmad iyo naxariis cunug lii gelshay way tir subxaanallah raxmad iyo naxariis cunug lii geliyay way tir waxba maan ku sameyn cunugii wuu dhashay aayara uma muusi fiican meel ayaan seexshay waxba dhibaato maan u geysaninay tir aakhirka cunugii intuu weynaaday ayuu korayo maamadii xajka geeyay xajka ayuu geeyay ee diris maamadii ahayd hooyadiisoo kale ayuu ka dhigtay xajka ayuuna geeyay marka gacan la barkana ilaahay baa og ilmaha yar ilmaha la jooga walaal si wanaagsan ugu samafal soona dumo oo adigu soo dhaweyso macnaha ilmaha xataa qaar ka soo dhaweyso ilmaha la sheekayso ayaga markay ka maqan yihiin asaga markuu maqan yahay waxaad ku tira hooyo ma haysto walaalkiina hooyo laan ayaa hayso saas awgeeda ayaan ugu naxariistaa oo aan ugu qeylinaynin haddaan ku qeyli cuqdad ayuu dareemayaa markuu asagu joogo ayaga ay maqan yihiin waxaad tira adiga ilmaha walaalkood ka weyn ah aniguna hooyada booskeedii aan kugu joogaahe si fiican walaalaha maarad u xaq dhowr ku dheh marka saaxiib uu kula noqonayaa marka dambe uu ku soo dhawaanaya uu isku ka aaminayaa يعني صاحب ayuu kula noqonayo wuxuu ka barto uu ku soo dhawaaha mar walba waxa laga yaabaa inuu isbedelo teenager-nimadan waa ay yeelaysaa xilliga ay ku jiraan ilmaha oo 15 waa marka ugu daranba marka insha Allah waxaan filaa inaad aad ugu samafani doonto si fiican aad u soo dhaweyn doonto xataa wixii tir aabaha markii uu ku soo dacwoodo kale ilmaha waa lagu qayliyaa marar qaar waa la garaacaa maxaa ka rabtay walaalka iyadoo asaga la ilaalinayo ayagana xaqiya laga gelin oo maaragtay laakiin waa in si aqliyan wax loo fahansiyo ayaa la rabaa si aqliyan wax loo fahansiyo ayaa la rabaa marka ma sha Allah walaalay waxaan leeyahay meel buu joogtaan qofkii ilmuusan dhalin haya haka taxadaro hana ogaado wanaaga iyo wax uu kula dhaqmo ilmaha asaga uusan dhalin kuwiisu ka heli doona kuwiisa ayuu ka heli doona dadku ma wada gartaan dad baa Ilaahay garansiiya dadna si doonaan bay ula dhaqmaan marka waxaad ogaataa wanaaga iyo wixii qeyrad hormarsatay adiga ay ku soo baxayaan adiga helaya ilmahaaga ka helaysaa baarnimadooda ka helaysaa adiga maarad si kale u helayo Ilaahay baa ka abaal marinaya marka ilma aad dhalin hadii aad hayso ogow in ilmahaaga uu marti u yahay oo adiga marti ku yahay markuu hooyaheysana waa ka sii xanuun badan yahay gabdho badan ayaa dhowr qof oo duco soo dalbatay gabadhan arkay ayadan dhees imtixaan galaa la soo duceeyo gabar kale waxay dheesay waxaan u baahanahay inaan soo wanaagsan la soo duceeyo mid kale waxay tiri inta sana nin qaba ilmana ma haysto ubad ma aan hal soo duceeyo dhamaantood waxaan leeyahay intii wixii alla waxay jecel yihiin oo jannad ugu weyn mid Allah ka saaro ilaahay waxay rabaan dhan ilaahay gacanta midka ugu shubo awlaad wanaagsan oo baariya Allah ku arsaaqo qofkii faqri dareen faqriga Allah ka qaado qofkii xanuun haysta xanuunka Allah ka qaado qofkii muraadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkiisa macsaliyada ka saaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala amni qeyr qabana si dhamaanteena meel baan ku nool Ilaahay nama fidneeyo tawxiidka Allah nagu dilo soo dhawaad walaalahayga aan jecelahay like share comment-iga waa xageena fikradaha quruxda badan la soo wadaaga insha Allah iyo qosooyinka idin soo maray oo dhan ugu faa'iideeyo walaalahayna marka soo dhawaada fiidin ku dheeraad raali noqda qosooyinka quruxda laga faa'iido saliga nabiga hal akhristo مرق والبوكيس هلا أخرستو قرآنك هدي أدمر والبصاحب كديقتو سبحان الله كتابك أصاحب كديقتو إلهي سبحانه وتعالى كما ضيعيو إلهي كما ضيعيو ووحو مارتوكون حريصنا يا يوم من أيامنا وحو قصينا يا ربي وحلا وحا أجعشاي فرجك أعربت يردك أسوق لنا ما شاء الله مركا هلو قد ذال بإذن الله صاحبنا هلا قديقتو حلي في عند الله السيحضة سنة مسكحة وإهشو حل الدقة بإذن الله هذا الإيميل بوجوكتان هبيني ما ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.